dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qabatay dad u basaasaya kooxda Al-Shabaab oo ku dhexmilnaa hay'adaha amniga kuwa kale tana ay baxsadeen oo ay ku daba jiraan haatan xildhibaano si dhow ula socday arrinta Al-Shabaab ayaa sheegay inay tani guul u tahay dowladda Soomaaliya isla markaasina loo baahan yahay in banaanka la soo dhigo cid walba oo looga shakisan yahay in kooxda Al-Shabaab ay u basaasayso sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay sheegtay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku dhex jiraan hay'adaha amniga Soomaaliya. hadalka dowladda ayaa ka dhigan in banaanka loo soo saaro hadalhaynta ama eedeyntii sanado badan socotay oo ahayd in Al-Shabaab ay ku dhex jiraan hay'adaha amniga Soomaaliya. shabaabku muddo dheer bay wadanka joogeen in ay qayb kasta oo bulshada kamid ah ay dad ku yeesheen waa wax jira sida hadda ka hor marar badan aan sheegayna shabaabka waxaa jira qayb ay kula socoto lacag oo ay masaalix ay u haystaan ugu shaqeysta haddii qaybtaas ayan heleena wax badan u qabsoomay ma qabsoomeen example gaariga laga soo reeyay shabeellada hoose oo ku qarxaya Boondere sida xamar dhinta soo dhexmara lacag baa gudbisay lacagtuna waxay martay ama ganacsade ama qof ciidamada amniga ku jira ama nisarkaala bay marta mid ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya ayaa sheegay in Al-Shabaab ay lacag badan ku bixiyeen sidii dad ugu yeeran lahaayeen gudaha dowladda gaar ahaan hay'adaha amniga. arrintan waxay jirtay mar hore intuu madaxweyne xasan hadda xukunkaay wax dhacay ma wax hore u dhacay oo system ay ku jireen nimankaas marka hadda dadaalo badan dowladda wada sidii loo kala saari lahaa hadda dhacdadii ugu dambeysay oo kullada jaalisiyaad oo nin korneyl ha ciidan ka tirsanaa oo qof soo galay meesha taas oo kale waxay noqonaysaa dadka niyadda ka jabinaysa maanta xildhibaan Sanyar oo si dhow ula socda arrimaha Al-Shabaab ayaa sheegaya in shaacinta la shaaciyo in xubno Al-Shabaab ee dowladda ku dhexmilnaa ay guul u tahay dowladda Soomaaliya hadda in la helo dad shabaab u shaqeynayay oo hay'adaha amniga ku dhex jira ama dowladda ku dhex jira la helo waxaan leeyahay waa horumar la sameeyay iyo jab shabaab waxa kale oo xusud midan hadda waxa xataa laga kaaftoomay dadkii maxkamadaha u aadi jiray ma aadaan maxkamadii hadda waxa la aadaa maxkamadii dawladda la soo aadaa soo shaabixidan xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku jiraan hay'adaha amniga dowladda ayaa timid maalmo kadib markii dowladdu sheegtay in la hayo askar iyo saraakiil la xiriirinay weerarkii qarada jaalasiyaad arrintaasina waxaa la sheegay inay abuurto cabsi iyo walaac xooggan oo ay qabaan madaxda dowladda Soomaaliya ayaa sheegaysa in hadduu bilaabanay wajiga labaad ee dagaalka waxaana madaxweyne xasan oo hadda si ku meel gaar ah saldhig uga dhigtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. madaxweynaha waxay tahay muhiimadda inuu aado Dhuusamareeb uu meesha fadhiisto oo shaqooyinkiisii uu ka tago meesha fadhiisto waxay muhiimad u tahay in dagaalkaas aan laga soo laaban muddo gaaban lagu soo afjaro. dadka yaqaana la dagaalanka Al-Shabaab ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay bilowga kala shaadhaynta hay'adaha dowladda Soomaaliya. haddii shaqada hadda socota oo ay hay'adaha amnigu wadaan ay sidaa u sii socoto ama la sii xoojiyo wax badan oo aad la yaabtaad ku dhex arki doontaa dalka dadka ayaa hadda si gaar ah isha ugu haya wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab taasoo dhowr jeer hore dowladdu ay sheegtay waxaana dhaqdhaqaaq ciidan iyo guluf dagaalba laga dareemayaa magaalooyinka Muqdisho, Dhuusamareeb iyo deegaano kale oo hoos yimaada maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle. Cabdulqaadir Okey, qubanaha VOA, Muqdisho.